nabadgelyo gabadhani waa fartuun balbalaarka laakiin waxaad ka jeceshihiin oo taageero badan u muujisaan fanaanada Nada Alghala marka iyada loo eego haddaba tani waa sheeko kooban oo ku saabsan nolosha fartuun balbalaarka iyo sida ay muhiim u tahay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu taageero kullay taba muuqaalka iyo codkeeduba garatay waa Fartuun Cumar Cali balbalaarka balse markan kama hadlayna heesaheeda xiisaha leh maada iyo wixii la mida tani waa Fartuun ka duwan midda aad ka aragto YouTube-ka iyo baraha kale ee lagu kulmo waa hooyada 3 caruur ah oo iyadu kaligeed koriso kadib markii ay kala tageen aabahood waxay si maalinlaha uga warqabtaa caruurteeda oo ay u diyaarinayso nolol ka duwan midda social media hooyonimadu keli korinta caruurta madadaalinta dad 50,000 ka badan oo kootadeeda YouTube ku xiran marna ma aysan ka hakin waxbarashada oo iyadoo intaas oo culeys saaran yahay waxay ku dadaalaysaa sidii ay uga guulgaari lahayd waxbarashada gabadhan walaasha ah ee sidan u dadaalka badan ee gunta dhiisha isaga dhigaysa ma waxay ka mudan tahay inaad u soo qaadatid tusaalooyin xunxun mise inaad taageertid dabcan waa laba arin oo aad adigu kala dooran kartid fasalkan oo lagu barto luqadda Ingiriiska ayay galab kasta xaadirtaa si ay uga gungaarto barashada luqadda Ingiriiska oo ay u aragto inuu furo u yahay horumarkeeda Fartuun oo ah gabar dhalinyaro ah si ay u soo gaarto heerka ay maanta joogto ee ah inay YouTuber noqoto darteed waxay ula kulantay xadgudubyo shakhsi ah dhaqrid iyo ku tagrifal awoodeed kuwaas oo uga imaanayay shakhsiyaad gaar ah sida ay sharaxayso ila Soomaali waxay leeyahay awees gudka dad mar gacanta la gashid ka soo bixitaan malaha way inta aad ku jirtay baraha bulshada maxaa kula yaab badan wallahi waxa ay ugu yaab badnaan maalintii aan xirtay sheekadii sarwaalka kor intii aan la magac iyo muuq aqoonsan Fartuun oo aysan noqon xidigad YouTuberad ah muddo 5 sano ku dhow waxay ku nooleed dalka Sacuudiga halkaas oo ay ka shaqayn jirtay si ay wax u tarto qoyskeeda dadka daneeya heesaheeda ayay suurtagal tahay inay isweydiinayaan sida uu ku bilowday damaca Fartuun ee ah inay fanaan noqoto sida uu ku yimid magacan ay caanka ku tahay ee balbalaarka iyo cidda ay fanka uga dayato markaan meesha joognay gabadha siilkee dhacday waan jeclahay gabadhii marka tabliiq saa u aqaantiin camal xijaab weyn ay wadato gabar caato iskoobe ahayd marka siilkee wuxuu dhahay qoftan waa iskoobe tabliiq waa mid balbalaaran halii keeno okay habeenkaas gabsaartii video aan ku galay idira ilaa had buu yaalaa boorsadeedu ku jiraa in habeenkaas videogaas in leega duubay in balbalaarka maanta wali keeno dhahaybo balbalaarka marka saas ay ugu baxday waxa bixiyay siikaya bixiyay saasayna ugu baxday inkasta oo ay aad ula kulanto dhaliilo la xiriira heesaheeda haddana Fartuun waxay aaminsan tahay inta nacib inay ka badan yihiin inta iyadu jecel balse waxay si qiiro leh inoogu sheegtay inay ka qoomameynayso markii baahideeda hooyanimo looga faa'iideystay in ay duubto muuqaalo bulshada Soomaaliyeed aanay jeclaysan bishii haddii 8,000 4,000 5,000 laga sameeyay oo waalidkaaga ku soo wacayaan lacag aad u haanin oo adigana maalin walba wax khaladan sameynayso oo lagu jibka laamiga fadhiisanaysid wax ku cunaysid adnin waalan la fadhiisan uu dhahay wareeska qaad oo lagu dhahay meeshaas mar saa sameey kan sameey lagu dhahay adiga naftirkaada ku dhaada maxaa sameyn lahayd waa wax laga xumaado markaad aan dib u tixraaco fiidiyoyaasheeda hore fiidiyoyaasha hadda markaan tixuro dib raaco kii dambe marmar waxa laga yaabaa inaan ooyo aan isbedelo aan ahaanteeda nafteeda aan aloosheeda adkaysan waayo waa maalintii igu naxti badneed waa maalintii igu yaab badneed wallahi horta maalintaas markaan fiidiyowga YouTube ku arkay qof walba oo aniga caanaay wax kasta liidahaayo habeenkii wasiixan waaye meelaan mari meelaan kala joogay waxaan joogay 2 bilood 3 bilood aan leeyahay waxaan joogay guri kamid ah guriga madaxtooyada ku yaalo gabar saa aan iska seenay oo meel ka shaqeynaysay in hadda meesha ay ka shaqeynaysay inaan sheego ma jecli gurigaas ayaan madaxtooyada guri kamid ah aan 3 bilood joogay dadkii baraha bulshada la saf laga deenayo aniga madax wareer ay u dhacay habeenkii ma seexan karin waxaan gaaray xilli aan ku qarbo idaafa aan oo dhaxay
annagu intii aan la joognay Fartuun ee aan wareysiga ka qaadaynay waxa aan ka akhrisanay ee dhaafsiisanaa hadalkeeda wuxuu ahaa inay tahay gabar hami leh wax kasta oo ay hadda ku howlan tahayna ay u qabanayso qoyskeeda iyo carruurteeda dartood maadaama ay ka soo jeedo qoys sabool ah. Fartuun ayaa hadda isku filnaansho nololeed gaartay tan iyo markii ay YouTube ku biirtay, waxaana hadda ay degan tahay hooy iyada u gaara oo 4 qol ah kaasi oo uga dhex samaysan yahay studio u gaara oo ay dadka iyada ku xiran uga maadeyso, waxaana lacagta ka soo gashay YouTube-ka ay ku maareysaa nolosha qoyskeeda, waxbarashadeeda iyo tan carruurteeda, waxaana ay qorsheynaysaa in mustaqbalka ay noqoto qof hiigsiga nololeed ay leedahay ka guul gaarta.